waxaa maanta si rasmi ah u bilaabay wajigii koowaad ee mashruuca Berbera Corridor ee wadada isku xidhaysa magaalooyinka Berbera iyo Wajaale. Mashruucan Berbera Corridor oo ah mashruuc ballaaran oo ku saabsan horumarinta dekedda Berbera iyo adeegga ay u qabato bulshada reer Somaliland iyo wadamada Geeska Afrika ayaa maanta waxaa si rasmi ah loo bilaabay banaynta jidka ay mari doonto wadadaasi isku xidhi doonta Berbera iyo magaalo ganacsiyeedka Wajaale. Axmed Naasir Axmed Cabdilaahi Xaraaro oo ka mid ah beeraleyda deegaankaasi isla marhaantaasina ay wadadu beertiisa martay ayaa sheegay inuu aqbalay isla marhaantaasina uu ka shaqeynayo horumarka dalka waxaan ugu baaqay muwaadiniinta kale ee reer Somaliland inay iyaguna taageeraan mashruucan. anigu magaca afka magaalooyinka wadada Corridor soo dhaxlaysan ayaa waxa farxadoodu ah maanta laga sheegay kuwa soo inta ku maraysa laga leeyahay fulanka ilaa inuu bilaabo iyagoo ka qeyb qaadanaya hawlgalada al-Soomaaliya ilaa ku yimaado dadweynaha meelaha leh ilaa ay ku hormaraan islaamiin waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka beeraleyda deegaankaasi waxaanay dhammaantood ka dhawaajiyeen faa'iidada mashruucan uu leeyahay bulshada reer Somaliland. dadka ku dhaqay dowladkan maraan beerahooda in ay wixii ay samaysteen ama guri ama gaara ay jiidho dadka ugu talagalay ee ay ka mid yihiin mulkiilaha maanta halkan jooga ka hadlaya dadkaas ayaa mahadle waxaanu leenahay waa wax Somaliland wax u tara aad waxaan ugu mahad celinayaa inuu Saciid oo leeyahay ha lagu dayo sida tijaabta kalena ugu dayato wax qabadka talabaad waxa weeye wadadu waa inoodan dekadu waa inoodan waa aqoonsigeeni waa horumarkii iyo waxaan aad ugu mahadinayaa oo halka markaan arkay shalaytiyo la xaarayo aan aad iyo aad uga muusanooday wadankeena waxba laga qaban muddo dheer aad iyo aad bay u fiican tahay qofkii wadaniya waxa weeyaan walaalkii hadalka dhameeyay halka bayis waxa ma taro ummadda Soomaaliland war muwaadiniin oo wax qabadka iyo markay noo timaado si waxaan loo